Assalaamu calaykum. Nin ka mid ah saxaabadii rasuulka ayaa waxa uu guursaday gabar. Gabadhii 6 bilood kadib guurkoodii waxa ay dhashay cunug. Isla markiiba waxaa bilaabatay hadalhayntii bulshada oo ahayd in ay gabadhu uur lahayd ka hor inta aysan isguursan. Ninkii waa uu baxay wuxuuna u tegay amiirkii muslimiinta oo markaas uu hayay Uthman bin Affan. Waxaa la joogay Uthman Ali bin Abi Talib. Ninkii waa uu baxay wuxuuna ugu warramay arrintiisii Uthman bin Affan. markii Uthman uu damcay inuu mariyo wax shariicada islaamku ay ka qabtay qofka dambiyada noocaas oo kala ah gala ayaa Ali bin Abi Talib wuxuu ku dhahay xaq uma lihidiin inaad gabadhan ku ciqaabtaan maadaama ay dhashay 6 bilood guurkeedii kadib. way weydiiyeen waxay dhaheen sabab. wuxuu dhahay ilaahay quraankiisa wuxuu ku sheegay waxamluhu wa fisaaluhu 30 shahran, macnaheedu tahay xilliga nuujinta cunuga iyo xilliga uurkusidka guud ahaan marka la isku dardaro wuxuu quraanku sheegay inay yihiin 30 bilood. sidoo kale marka wuxuu quraanku sheegay wal waalidaatu yurdicna awlaadahunna hawlayni kaamilayn, in hooyooyinku ubadkooda ay nuujiyaan 2 sano oo kaamil ah, yacni dhammaystiran. haddii 2 sano bil ahaan loo xisaabiyo waxay noqonaysaa 12 bilood oo 1 sano ah iyo 12 bilood oo 1 sano ah marka la isku daran waxay noqonayaan guud ahaan 24 bilood. 24 bilood marka laga jaro 30 bilood ee quraanku ku sheegay inay guud ahaan isku tahay nuujin iyo uurkusid, waxa soo haraysa 6 bilood. 6daas bilood waa ay ku dhali kartaa gabadha sida quraanku sheegay.